asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. subax wanaagsan. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 20 bisha abriil sanadka 2025. waa barnaamijkeenii ugu horeeyey aan maanta oo axada idiin soo gudbinayno. haddii alla idmo barnaamijyada kalena waa isku soo xigi doonaan. haddaba xaalku siduu yahay, maxaa soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn? haddaba saakay xaaladu halkee bay maraysaa? xalay maxaa lagu kala hoyday? wararkii ugu dambeeyaan idiin hayaa. haddaba wararka xiisaha leh saaka aan idiin soo gudbinayo waxay tahay maraykanka oo 50 weerar ku qaaday dalka Yemen. waxaana la soo ogaaday maraykanku inay baadigoob ugu jiraan gantaalka halista badan ee ay xuutigu haystaan, kaasoo ugaarsaday 20 in ka badan diyaaradihii maraykanku ku dhaaranayay MQ-9 dhulka soo dhigay. haddaba gantaalkan maraykanku ay raadinayaan oo uu xuutiga haysto ayaan war idinkaga hayaa oo Al Jazeera ka qortay, ayaan idinla wadaagi doonaa. gantaalka halista badan halkuu uga yimid, sidee ku soo gaaray, sheeko la yaab laan idin hayaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadal uu jeediyey Netanyahu oo carab fara badan mar kale ka abuuray gudaha Israa'iil. haddaba muxuu sheegay Netanyahu xalay? warkii uu sii daayay ayaanu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. waxaa soo kale barnaamijkeeda kugu haynaa xalay ilaa shalayto mudaharaadyadu ma kala joogsan dhowr magaalo oo Maraykan ah. dadku waxay kasoo horjeedaan siyaasadaha Trump ee uu ku maamulayo dalkaas. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirnana waxay warar ee soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit kastoo aad naga daawanaysaan, kusoo dhawaada barnaamijkeenii subaxnimo ee saakay oo axada. waa barnaamijkii ugu horeeyay aanu idiin soo gudbinayno maanta. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa xuutiga iyo maraykanka waxa kala haysta. mar walba sheeko cusub ayaa soo kordhaysa. marka hore waxaynu ku bilaabaynaa saakay warbaahintu waxay ka hadlayaan ilaa 50 weerar ayuu maraykanku 12 saacadood ee lasoo dhaafay ku qaaday Yemen. 50 weerarka nagteeska saara. marka waxaa leeyahay dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin maraykanku wuxuu raadinayaa la leeyahay xogo la helay. waxay sheegayaan maraykanku waxay baadigoob ugu jiraan oo ay raadinayaan gantaal halis badan oo ay isu sheegeen maraykanka. diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kuwa casriga F-35 kuwa la leeyahay kuwaasaa ka baxsada, laakiin diyaaradii qaaliga ahayd oo xabadiiba 32 milyan oo dollar ay ku fadhiday 21 diyaaradood ay ka marayaan xuutiga. waa diyaaradda la yiraahdo MQ-9. diyaarad drone oo adduunka la mida oo ku qiimo ah ma jirto. maraykankuna diyaaradda ma iibiyo. diyaaradda ciidamada maraykanku ay ku dhaaranayeen markay hawada soo gasho Yemen, gantaalkan waxaad moodaa magnad la shaqeeya inuu yahay. markiiba dabadu ka galaya, dhulku soo dhigaya. marka waxaan leeyahay weeraradan isdaba jooga maraykanku qaadayaan waxay raadinayaan gantaalkaas. haddaba muxuu yahay marka gantaalkan halista badan ee xuutigu ay ku ugaarsanayaan diyaaradan MQ-9? haddana diyaaradihii kale halista badnaa F-35 iyo waxba kama tari karo, sababtoo xawaaro sare ku socdaan, way u goynayaan gantaalka. tan laakiin waa drone intee leedahay u ka adeeganaa. maraykanku waa dhaqaajin lahayn, diyaaradihii ay ku dhaaranaya waa ceebaysan yihiin. marka waxay leeyihin gantaalkan diyaaradan waxay wadataa shucaac, waxay wadataa alaab gantaalaha isaga fogayso. adduunku intaasaa loo akhrin jiray. nimankan jabhadda ah gantaalkan ay haystaan marka maxay? haddaba marka baaritaan mudiifikadii adduunkan saarnay waa habaynay nimankaas. marka waxaan u kala bixinay SAM 5kii, SAM S-75kii iyo SAM S-125 125 iyo 25 kuwii kale ah. qaaran 1 iyo qaaran 2 u bixin. qaaran 1 iyo qaaran 2 hadda saamkii wax lagu jeedaba male. waa siday u shaqaynayaan, siday annaga marka alaabtaas haysanaa dheh. marka alaabtaas waayay yiraahdeen
waxa aanu nagta kaga saarno maalin walba nimankan maaragtay maraykanka diyaaradan MQ-9gana waaba noo sahlanta yiraahdeen diyaaradii ugu qaalisaneed Soomaaliya asaga xabadii waxay joogtaa lagu leeyahay 33 milyan oo dollar 22 diyaaradood laga maraa 22 ala maraa 22 min 33 odaga qasaaro jiifa Soomaa odaga marka waxa leeyahay marka gantaalaha saas u raadinayaan diyaaradaha gantaalahan markay soo dhacaan diyaaradaha xataa qatari galayaan kuwa kale farsamadooda iyo alaabtooda ku maraan maahane gantaalkan waa halisa leeyahay marka ay waxa u baxsayaan qaaran 1 iyo qaaran 2 ay yiraahdaan marka waxay yiraahdeen gantaalahaasu waa gantaalaha halista badan ee ay xuutigu meel ku saareen diyaaradihii waalida ahaa ee Mareykanku boonbooni jiray oo ay markaa 22 hadda ka marayaan qodobka halka ayanu kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijka waxaynu u gudbaynaa arrinta Gaza gudaheedan ka sameysana uu yiri zone amaan la yiraahdo meel amaan ah oo Israa'iil laga waardiyo meeshaan geenina Suuriya hadda waa ku jiraan baydon meesha geenay marka sheekada marka waalida ah ayaa ku jirtay qudbadiisa oo marka dadku ay aad marka Israa'iiliinta xataa gudahooda ay aad uga caroodeen wararka Gaza waxa kale oo ugu waaweyn saaka ciidanka Israa'iil waxay qaranayaan in sarkaal sare uu kaga dhintay markii ugu horeysay tan iyo markii dagaalka ay ka bilaabeen Gaza deegaanka Xay Tufaax oo ku yaala bariga Gaza halkaas oo shalay lagu galay nimankii horaan idinku sheegay iyagu laakiin markaa waxay lahaayeen 5 askari naga dhaawacantay hadda waxa soo kordhay 5tii iska dhaafay askari kale oo sargaala inuu dhintay 3 kalena dhaawacay halisa ay soo gaareen ay iyaguna saaka qiranayaan qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa Trump oo lagu kacsan yahay mudaharaad aan kala joogsi lahayn sabti walba ilaa axad walba la isku soo baxo Mareykanka oo lagu qayliyo warninkanu ninna hogaamin kara ma aha isaga tago beesha leeyahay Trump waa maskaxda xaruujiye dadka mudaharaadaya haddaba xayisiinta qatay dhanka kale wax warara oo gooniya oo soo kordhay male arintii Mareykanka iyo Iran kulankoodii shalay Roma ka dhacay Mareykanka ayaa warar kooban soo saaray waqti dambe xalay waxay leeyihiin kulankaas uu wanaagsanaa marka waxaan rajaynaynaa kulanka dambe ee ka dhici doono Masqad xarunta Oman in marka isaguna aan hore u sii wadi doono marka labadoodaba tafaasiil badan ma hayaan inta dheer marka wasiirka arrimaha dibadda Oman Twitterka ayuu isaguna soo dhigay wuxuu sheegay inuu maad celinayo labada dhinac inay xilkasnimo muujiyeen oo ay muujiyeen inay doonayaan inay wada hadal arinta ku dhameeyaan inkastoo warar kale oo soo baxay la leeyahay Israa'iil waxay qorsheynaysaa bisha soo socota inay weerar ku qaado goobaha nuclear-ka marka dadka wax falanqeynaya waxa leeyahay warka waa iska sheeko Israa'iil weerar ma qaadi karto ilaa Mareykanka aanu la socon marka kaligeed halka kuma degdegi kartaa la leeyahay marka wararkaas oo dhan waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee hadda warbaahintu ay ka hadlayaan barnaamijkaygiisa waxnimada saaka inta ayaan ku soo gabagabeynayaa fakar iyo aragti waxa qabtaan noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha sidoo kalena barnaamijka haddaad ku cusubtahay subscribe-ka ka ilooban YouTube channelkeena Nadaara TV haddaad sidoo kale ku cusubtahay page-keena Facebook-ga Nadaara Show fadlan follow garay inta aan mar kale kulmayno barnaamijka lamida nabadgelyo